الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كسو دوادا مادتين بيولوجيكا فصل كفون 4 جابتركا كوردينيشن جابتركا كوباد مادة بيولوجيكا فصل كأفراد وحين كبرانينا كوردينيشن سيدا أنو كفهمينو وحا جابتركاني كونتكتسكو ويالانا يسيدا كاركتان وحين نغنيسا nervous system endocrine system homeostasis and feedback sidaad magacyada kala fahmaysaan nervous system iyo endocrine system waa laba habdhis oo xiriir la leh fasalkeeni form 3 chapterkii ahaa human physiology habka uu u shaqeeyo jirka bini'aadamka haddaba waxaynu rabnaa inaanu fasalkan form 4 ku dhigano chapterka coordinationka isku xirka marka la isku daro labadaan habdhis ee kala ah nervous system iyo endocrine system haddaba marka uu dhamaado cashirkeena bartuhu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu garanayo oo atixi karo noocyada uu qaybsamo habdhiska dareenwadaha sidoo kale wuxuu awood u yeelanayaa ardayga in uu garanayo qeexi karo sharaxaad ka bixin karo waxa uu ka samaysan yahay habdhiska dareenwadaha iyo shaqada uu qabto sidoo kale wuxuu awood u yeelan doonaa ardayga inuu aqoon u leeyahay kala soocidda ama kala saaridda saddexdan term ee kala ah synapse nerve impulse and reflex arc waayahay haddii aynu ku hormarno kelmadda ah ee chapterka magaciisa coordination waa maxay coordination waxaa la yidhaahdaa is making different parts of the body working together in laga dhigo qaybaha kala duwan ee jirkeenna mid isla shaqayn karo weliba in orderly and organized manner hab isku xigxiga oo habaysan oo aan isku dhac lahayn inuu u shaqeeyo haddaba shaqadaasi isku xirka jirka bini'aadamka waxa uu qabto labada habdhis ee kala ah nervous system iyo endocrine system cashirkeena koowaad waxa uu ka bilaabanayaa habdhiska la yidhaahdo nervous system chapterkeena coordinationka cashirkiisa koowaad lesson 1 waxaynu ku baran doonaa nervous system habdhiska dareenwadaha waxaan isweydiinaynaa su'aal ah haddaba muxuu yahay habdhisku dareenwado is a system waa habdhis that coordinates kaasoo isku xira and controls maamula different activities shaqooyinka kala duwan taking place kuwaasoo ka dhacay baadhi jirka waa habdhiska isku xira dhammaan waxyaabaha falgalada iyo waxyaabaha kala duwan ee ka dhacayo jirka bini'aadamka waliba nervous system by using asoo isticmaalaya nerve cells unug dareenwade ama neurons isagoo adeegsanaya waxaan isweydiinaynaa nervous systemku maxaa loo qaybiyaa habdhiska nervous system is divided waxaa loo qaybiyaa into two laba labada party maxay kala yihiin qaybta koowaad oo ah central nervous system oo loo soo gaabiyo CNS oo macnaheedu yahay habdhiska dareenwadka dhexe iyo peripheral nervous system habdhiska dareenwadka raaracyaasha oo loo soo gaabiyo BNS way central nervous system ko habdhiska dhexe ee dareenwaduhu wuxuu u qaybsamaa labo brain maskax iyo spinal cord xangulle labadaas ayaa loo kala saaraa peripheral nervous systemna isna wuxuu u qaybsamaa labadaas oo kala ah cranial nerves iyo spinal nerves magaca cranial nerves waxaa loo leeyahay waxaa laga keenay lafta gambada saaran ee la yiraahdo craniumka waa skull lafta gambada nerveskan maadaama ay ku jiraan ay ka soo baxaan ka soo faracmaan base of the brain gaar ahaan lafta ku dahaaran ee craniumka magacaas ayay qaadanayaan waxaa la yiraahdaa cranial nerves kuwa labaad waxaa la yiraahdaa spinal nerves maadaama iyaguna ay ka baxaan ay ka faracmaan lafta spinal column laf dhabarta spinal column iyaguna waxaa la yiraahdaa spinal nerves waaya haddaba aynu aragno sawir ahaan mid walba ay locationkii halka uu ku yaal iyo dabcan magaciisa maskaxdu waxay ku taalaa qaybta sare ee madaxa iskaalka gambada sare waa brain sawirka sida ka muuqdo waxaa ku xiga spinal cord xangullada oo isaguna dabcan ku yaala halka ay ku dhamaato brainka waxaana isaguna difaaco laf dhabarta
sidoo kale cranial nerves iyo spinal nervesna u jeedna waxay ka baxaan dhinacyada iyagu waxaa la yidhaahdaa raaracyaal haddaynu u gudubno muuqaalka structure-ka uu ka kooban yahay unugga dareen waduhu ama neuronka inta aynan u gelin structure-kiisa aynu baranno waa maxay neuron waa maxay unug dareen wade neuronku waa is the basic functional unit of the nervous system markaynu ka hadlayno habdhis dareen wade waxaa asaasi u ah shaqada uu qabto dareen waduhu waxa la yiraahdo nervous cell unug dareen wade marka wuxuu noqonayaa basic functional unit isaga ayaa halbeeg asaasi ah waa habdhiska dareen wadaha markaan ka sheekeynayno muhiimadaas ayuu leeyahay iyagu waa specialized cells unugyo leh shaqooyin gaar ah oo maxay tahay shaqada ay qabtaan nervous cellsku that transmit waxay gudbiyaan electrical impulses qulqulka korontada ahaan qaab koronto ahaan iyo qaab impulses ay u gudbiyaan iyagoo geynayo around the body dhammaan jirka oo dhan habkaas impulse ahaan qulqul koronto oo kale ayay ku gudbiyaan sawirkaasi inoo muuqdo waa unug dareen wada waa nerve cell waxa uu leeyahay nucleus wuxuu leeyahay cell body waynu baranaynaa dhammaan the neuron nerve cell-ku unugga dareen waduhu is composed of wuxuu ka kooban yahay kow sida sawirkaaga muuqdo waxaa la yidhahdaa numberka 1 dendrites wuxuu noqonayaa geed yarooyaal maadaama ay muuqaalka ay leeyihiin sida geedaha oo kale laakiin geedo ma ahane waa qaybta unugga dareen wadaha dibadda wax uga soo qaada dendrites shaqadeeda waa sheegaynaa qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa cell body jir unugeed waa qaybta ugu weyn ugu muhiimsan maadaama laga dhexelayo nucleus-ka waxaa 3 ah axon leaf dareen wade waxaa kaloo dabcan ka mid ah myelin sheath dahaarka myelin waxaa kaloo ka mid ah nerve cell-ku structure-kiisa waxa uu ka kooban yahay node of Rainville guntinta Rainville oo loogu magac daray saynisyahankii ahaa Faransiisku u dhashay Rainville iyaduna sheegayna shaqadeeda waa guntintaasi myelin sheath walba labada myelin meesha iskaga imaanayaan guntinta u dhaxayso ayaa la yiraahdaa node of Rainville 6 axon terminalis sidoo kale isaguna waa dhammaad dareen wadayaal aynu baranno haddaba structure-kaas mid walba baarti kasto iyo shaqada uu unugga dareen waduhu u qabto waxaan baranay unugga dareen wadaha inuu ka kooban yahay dendrites haddaba dendriteskaasi ee geed yarooyaal aan ku sheegnay maxay unugga dareen waduhu u qabtaan receive information from receptors fariimaha ayay waxay ka keenaan organada wax dareema receptorska waxaanu ka wadnaa haddaan jilciyo eye is a receptor isha ka mid ah dhegta ka mid ah maqaarka ka mid ah kulli meelahaasi dareen waduhu dendritesku waxay ka keenayaan receptorska and transmit kadibna waxay u soo gudbinayaan impulses qulqulka dareen wadihii towards the cell body jirkii unugga ayay keenayaan waayahay hadday dendritesku shaqadoodu tahay inay informationka keenaan cell body-ga isaguna muxuu sameeyaa haddaan idinku noqono cell body-gu waxaa laga dhexelaa nucleus-kana waxaan naqaanaa inay controlsho dhammaan activity-ga cell-ka ka dhacayo iyaduna marka is the main control center waa qaybta ugu weyn ee ugu muhiimsan ee maamusho the neuron nerve cell-ka unugga dareen wadaha waxaa ku xiga structure-ka neuronku wuxuu ka kooban yahay axon sidoo kale axonku waa leafka dheer ee dareen waduhu transmit wuxuu gudbiyaa impulses qulqulka dareen wadaha ayuu away ka qaadaa from the cell body isagoo u gudbinayo another neuronka kale ee ku xiga ee gaarsiinaya axon terminaliska waxaa structure-ka uu ka kooban yahay nerve cell-ka myelin sheath dahaarka myelin sheath-ku wuxuu qabtaa in uu dahaaro sida korontada oo ay ugu dahaaran tahay caaga loogu talagalay insulator-ka ah inaysan dana korontada midka kale istaaban ay say shoog uga dhalan ayay myelin sheath-kuna kuwa myelinated-ka ah ku dahaarihiin say u ilaaliyaan in ay axon kale u taabto myelin sheath-ku marka waa insulates shaqadeedu waa waxay insulate ka dhigtaa the axon node of Rainville marka walba laga soo dhaqaaqo waxaan dhahnay nerve cell-ka markuu sidaa yahay kan uu yahay cell dendrites ay yihiin kuwa midkan dheer this one is the axon kan waa axon waa soo sheegnay waxaan u baahanayaa marka mar allaali markasta myelin sheath
magaalin sheet kastaay waxaan arkaynaa waxa u dhaxeeya junction kaasi ayaa la yiraahdaa node of Ranvier ka marka waa kan waxa uu sameeyaa shaqadiisu tahay inuu ziyaadiyo speed xawaaraha increases wuxuu ziyaadiyaa speed of transmission qulqulkii dareenwadka ee la soo qaaday ee dendrites soo qaadeen axonku waday mar alaali markastuu soo gaaro node of Ranvier waxa ziyaadayo xawaaraha haddaba neuronsku ama unugyada dareenwadaha ama nerve cellsku waxa loo qaybiyaa 3 times neuronka wuxuu qaybsamaa 3 qaybood kan koowaad waxa la yiraahdaa sensory neuron waxa la yiraahdaa neuron ogaade sababtoo ah waxa uu fariimaha ka soo qaadaa receptor cellska unugyada organada dareenka wuxuuna keenaa maskaxda sidaas daraadeed la yiraahdaa neuron ogaade isagu sidii in ka muuqata sawirka cell badigiisa dibadda ay taalaa sidaas aan ku ogaanaynaa inuu kaga duwan yahay motor neuron kan labaad waxa la yiraahdaa motor neuron adeege wuxuu qabtaa shaqadii uu geeyay sensory neuronka nervous systemka central nervous systemka brainka ama spinal cordka shaqadii uu geeyay ay jawaabta ay soo bixiyeen ayuu soo celiyaa isagoo keenaya effectorkeenu waxa uu noqonayaa laba mid inuu yahay either gland qanjidh or ama muscle muruq labadaas meel ay fariinta ku soo celiyaa sida kaaga muuqato sensory neuron iyo motor neuron waxay ku kala duwan yihiin directionka wuxuu ka bilaabaa receptor cellka isagoo u wado cell body-ga kana wuxuu ka qaadaa from the cell body isagoo geenayo axon terminalis jihada impulse-kana kala duwan yihiin sidoo kale cell body-ga wuxuu ku yaalaa axon dhamaadka axonka ayuu ku yaala motor neuronka halka sensory-gana uu ku yaala dhaxbartamaha hadhow waxayna kaga maarmeynaa jadwalka soo socdo sharaxaadiisa intermediate neuron waa neuronka ama nerve cellka saddexaad waxa kale loo yaqaanaa relay neuron waxa uu isagu shaqadiisu tahay inuu isku xiro labada neuron ee kala ah sensory neuron between sensory neuron and motor neuron waaye isbarbardhigaasi hadda aynu sheegnay waxaynu dhahnay cell body-ga sensory neuronka outside-ku kaga yaala motor neuronkana inside-ku kaga yaala intermediate-kana sidoo kale sensory neuronka dendritskiisu waa dheer yihiin long dendrites ayuu leeyahay motor neuronkana long axon ayuu leeyahay intermediate neuronkana short axon iyo short dendrite ayuu leeyahay waxaanu kaloo sheegnay in xagga shaqaduna ku kala duwan yihiin shaqada inuu ka qaado impulseska receptorska uu ka soo qaado tusaale ahaan maqaarkii dhaawaca wax gaareen ee dareemay kulka iyo wax la mid ah geeyo to the central nervous system habdhiska dareenwadka waa neuron ogaadaha sensory neuronka motorkana jawaab inuu soo celiyo oo uu ka soo qaado from central nervous system uu keeno effectorka sidaasina lagu ogaado waxa meesha ka dhacay kan kalena wuxuu ka dhex shaqeeyaa labadooda waayahay saddexdan eray waxaan u baahannahay in ardayga uu awood u leeyahay inuu kala sooci karo oo maxay yihiin nerve impulse synapse iyo reflex arc nerve impulsesku waa an electrical charge that travel along an axon resulting from a change in ionic concentration across the surface membrane of a nerve waa nerve impulseska qulqulka dareenwaduhu hab ay u soconayaan electrical charges oo ay ku gudbayaan axonka ay dhex soconayaan electric markaan leeyahay halkaas haddaan jilciyo waxaan ka wadaa electrical chargeska ama ionic concentrationka ay leedahay haddaan sawir ahaan idinkugu muujiyo haddaan ka soo qaadnay inuu yahay axonku waxaa la shaqeeya ionic concentration sodium ion iyo potassium ion waxaa jira kala duwanaansho outside of the membrane dhammaan waa positive charge gudahana dhammaantood waa negatively charged su-aal haddaa isweydiinaysa aad leedahay potassiumku waa plase maxay ku imaatay negative chargegan brotiinada ku dhex jira inside the cell membrane-ku ayaa waxay yihiin kuwa negatively charged ah this ionic kala duwanaanshaha ioniskana waxay keenaysaa in ay noqdo laba mid inuu yahay markani waxaan u naqaanaa resting potential waana polarized marka dambena waxaa noqonayaa sawirkan ku arki doonaa action potential marka haddaba qulqulka nerve impulse-ka markuu sidaas yahay
oo ay surface membrane-ka ay ku kala duwan yihiin waxaa loo yaqaanaa nerve impulse yaa la yidhahdaa hab waxay ku socotaa electrical charges ayay ku dhex maraan synapse iyaduna waxaa waaye is a point in which two nerve cells waa halka labada unug dareenwade come in contact iska taabanayaan is a point or is a gap waa gaabka ama pointiga u dhaxeeya halka ay iska taabtaan laba neuron aynu arki doono insha Allah reflex arc iyadu waxaa la yiraahdaa qaansada falcelintu waa marka uu dhacayo habka la yiraahdo reflex action marka taabatid gacantaadu hot object shay kulul aad la boodaysid ama marka ay kumudaan wax caarad leh ficilkaas waxaa la yiraahdaa reflex action laakiin arinta ka dhalanayso pathway-ga ee isxiga ee la raacayo ayaa la yiraahdaa reflex arc halkaas waxaa jiro farqi yar u dhaxeeya reflex action iyo reflex arc reflex arc waa the pathway followed by an impulses waa qulqulka dareenwadka baadka ay raacayaan from a sensory organ ay ka tegayaan xubin dareen to the central nervous system la geenayo habdhiska dhexe ee nervous systemka and finally ugu dambeeyna loo gudbinayo to a factor waxaanu ku arkaynaa sawirka soo socda markaan ka sheekeynayna nerve impulseska waxaan niri sawirkaasi labada qaybood qaybta koowaad wuxuu noo muujinayaa nerve impulse ku jira xaaladda la yiraahdo resting potential markaani sodium ions waa plus dibadda out ka jiraan potassium ion ka gudaha ku jira gudaha cell membrane waa negative waa resting potential waxaana la yiraahdaa polarized markaan paralyzed ma aha waa polarized markii xigana nerve impulse waxay ku jiraan action potential oo socod sodium ions gateska ayaa laga furay gudaha ay rush into the in while potassium ions rush into the out markaasina waxaa la yiraahdaa depolarized xaalad saddexaad ah jirto oo la yiraahdo repolarization oo dib loo celin doono sawirka labaad waxaa ka muuqda muuqaalkaas yar oo dhaqdhaqaaq animation-ka waxaa ka arkaysaa synapse inuu dhacayo oo ah in dendritiska uu leeyahay neuron iyo dendritiska other neuron in ay isku gudbinayaan impulses waxa kiishka kuusan waxaa la yiraahdaa waxa ku dhex jira chemical neurotransmitters halka bannaan gaabka yar iska haystaan waxaa la yiraahdaa synaptic cleft kiishashkana waxaa la yiraahdaa synaptic vesicles waaya sawirka xiga wuxuu noo muujinayaa reflex arc hadda aan ka sheekeynay qof gacantiisa oo ka muday qodob wax sharp object shay mudac ah caarad leh kadibna la qaaday waxa imaaday waa stimuli waa dareen dhaliye waxa soo qabtay waa receptor oo ah skin farta maqaarkeeda waxa qaaday neuronka qaado waa sensory neuron waa neuron ogaade waxa la geeyay spinal cord waayo falka degdega ah waxa ka jawaaba spinal cord-ka waxaana isku xiraya labadooda relay neuron ama interneuron isagoo ka soo waxaana markii fariinta la soo gudbiyay oo spinal cord-ku xangullo ka jawaabay in gacantaasi wax caarad la imudeen jawaabta waxa soo qaadayo another neuron kale oo la yiraahdo motor neuron wuxuuna keenayaa a vector oo noqon karo maskal hadda gacanta idin muuqato muruqaas hadda waxa lagu khasbayaa contraction inuu sameeyo oo kala cararo habkaasi pathway-gaas laga bilaabayo from receptor ilaa effector la geenayo ayaa la yiraahdaa reflex arc haddaba marka haddaynu ka hadlayno habdhiska dareenwaduhu waxaa qasab ah inaynu sheegno maskaxda brain-ka maxay ka samaysan tahay shaqada ay qabatona maxay yahay sida idiin muuqato sawirka brain-ku waxaa ka samaysan saddex qaybood forebrain midbrain and hindbrain gaar ahaan waxaynu baranaynaa saddexda baartiyo ee ugu waaweyn ee kala ah cerebellum iyo medulla oblongata saddexdaas cerebrumtu waa qaybta sare aanu arkayno aynu bilowno the brain maskaxdu guud ahaan shaqadeedu waa coordinate inay isku xirto and regulate inay maamusho the activities shaqooyinka of the various parts of the body waxyaabaha kala duwan ee jirkeena ka dhacayo inay isku xirto haddaba qofku waxa uu wax ku yahay waa maskaxda major parts of the brain qaybaha ugu muhiimsan ee maskaxdu leedahay waa cerebrum oo ah the largest part qaybta ugu weyn shaqooyinka ugu badan qabata cerebellum qaybta labaad ee idin muuqdo ee hadda midabka blue ka muuqdo qaybta saddexaad ee la yiraahdo medulla oblongata aynu barana mid walba ay shaqadiisa haddaanu ka hormarno cerebrum waa shaqada koowaad thinking center waa halka qofka bini'aadamka uu ka fekero sidoo kale waa halka shaqo kule in learning barashada imagination khiyaaliga uu qofka ka fekerayo creativity hal abuurka intelligence garaadka sidoo kale shaqadeeda waxaa ka mid ah waxay maamushaa fluent responses falcelinta
qofka isagoo conscious dareen qaba uu sameynayo ayadu ma maamusho waxyaabaha influentriga waxa maamulo wax la yiraahdo medulla oblongata haddaynu shaqada u dambeeya ay cerebrum-tu qabato receive waxay heshaa and coordinates isku xirtaa impulseska ka imaanaya forsaad aragga smell urta hearing maqalka and speech hadalkeeda mas'uulka ah sidoo kale cerebellum haddaynu u gudubno qaybta labaad ee maskaxda baartiga labaad coordinates wuxuu isku xiraa body movements dhaqaaqa jirkeena isagaa qaabilsan maintain balance in la isku dheelitirnaado oo posture la ahaado sidoo kale waxa mas'uulka ah cerebellum-ta qaybta saddexaad waxaa la yiraahdaa medulla oblongata oo ah baartiska maskaxda ka mid ah waxay kontarooshaa halka aynu soo sheegnay cerebellum-tu ee ka awood u leedahay inay kontaroosho waxyaabaha influentriga influentrigana waxa lagu kontaroolaa medulla oblongata maxaa ka mid ah waxyaabaha influentriga ah waxa ka mid ah breathing neefsashada qofka isagoo hurdo ayuu neefsanayaa waxa kontaroolaya medulla oblongata adigu kuma lihid shaqo oo conscious ma aha waa unconscious heart rate garaaca wadnahaaga salivation blinking isha markaad jibinayso waxyaabahaas kulli waxay ka mid yihiin involuntary activitieska waxaa laga maamulaa medulla oblongata spinal cord waa qaybta ugu dambeeya central nervous systemka labada aynu u qaybinay oo ah xangulaha qaab ahaan wuxuu u samaysan yahay structure-kaas ee qaabka dhulubada leh kana kooban labada qaybood ee kala gray matter qaybta midabka dambasiga leh ee gudaha ku jirta oo eg balambaalista nerve cells-ka ku wareegsan central canal-ka waxaa loo yiri grayna sababta loo dhahayna waa presence of cell body ayaa ku jiro cell body-gana midabkooda waa gray qaybta labaadna waxaa la yiraahdaa waa white matter spinal cord-ku iyadoo waxaa neurons ee ku hareeraysan oo ku xirayo spinal cord-ka brain-ka qaybta kaga xiraysay iyaguna white matter waxaa loo yiri sababtoo ah myelin sheet ayaa ku badan shaqada spinal cord-ka wuxuu mas'uul ka yahay inuu ka jawaabo waxyaabaha aan maskaxda in la geeyo oo si degdeg ah looga soo jawaabo loo baahnayn ayaa isagu shaqadaasi qabsado oo spinal cord-ka ayaa looga jawaabaa responseska to stimulate dareen dhaliyaasha that reach the surface of the body waxyaabaha degdega ah ee soo gaarayo isaga ayaa ka falceliyo wuxuu kaloo naga caawiyaa inuu khatarta ka ilaaliyo jirkeena sawirkaasi wuxuu inoo muujinayaa spinal cord white matter waa halka kore ee cad gray matter waa qaybta dhexda ah neuronskina way kan soo galaya waa sensory neuron ka baxayana waa motor neuron ka dhexda ku jirana waa relay neuron exercise-kan ardayda waxaa laga rabaa in ay magacaabaan neuronka ama nerve cell-kan nooce ma sensory neurona ma motor neurona mise waa relay neuron sidoo kale ardayga waxaa looga baahan yahay inuu magacaabo baartiyada fallaadha ay tilmaamayso oo isagoo adeegsanaya magacyada ku qoran bokiska hoose isku aadi haddaad wax ka fahantay taamiskii ee rabixintii aynu soo qeexnay ay ka mid ahayd reflex stimuli effector hormone iyo receptor adigoo ku aadinaya columnka ku xiga ee definitionkiisa wato sida kaaga muuqdo shaashada sawirkani wuxuu sidoo kale muujinayaa reflex action iyo falal kale aanan ahayn falal reflex action ah iyo kuwa aan ahayn haddaba ardayga waxaan uga baahanay inuu garto afartani qof kuweebaa muujinayo falka la yiraahdo reflex action afarta qof adigoo eegaya midowba xaaladdu ku sugan yahay kan koowaad waxa uu ku gubtay foornada ayadoo is ogeyn wax duwayso qofka labaad wuxuu sameynayaa sneezing waa hindasaya qofka saddexaad wuxuu awood u yeelan waaya sabuuradaas inuu arko wuxuu concentrate ku sameynayaa boardka meesha ku yaal waxa ku yaal inuu akhriyo qofka saddexaad aragtidaasi qoraalka warqadda ku qoran newspaper-ka ayuu rabaa inuu akhriyo keebaa adeegsaday reflex action afartaasi qof waaya halkaasi waxaa inoogu dhan cashirkeena koowaad